الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقناها وحلقني ومنها قرأتو عن قوقات أدقيا لا سعانه اللغو تشيدا يو هرقل الذي مقالة دحيدا اللغو قولينا يو مش تلغوها يو أيضا اللغو دح وقعصنا يو وأدول استاقي دونا يا حالات ده هرقل الذي كسوغيين يهرقل كي اوينا والله سعانه لا مليان العقل لسو ديبي وأدول استاقي دونا سيدو كلا قوانا وحان كنتو استاقي دونا meeshii halkaa iyo tulli guuleed iyo reerkii gari koomba ahaa oo oramo oo dhikaysani oo balaayo shunshuurka la wada tahay ay usoo xaydxayteen iyo dowlad deegaankii iyo madaxweynihii meesha la yidhahdo DDS oo busta la saaray sida deni isaga deni muwaala maay a'uudu billahi minash shaytaani asaga aduu istaagi doona sidoo kale qowlada waxaan ku istaagi doonaa guddiga doorashooyinka Puntland ee sanduuqyada maraqa la baxay sanduuqyada maraqa oo cunsuriyadii u dambeysay la yimid ayaga dhowr maanta oran doona waxay dhaheen 10 sano qofkii Puntland joogay baa codeyn kara warbash ma Soomaaliya ahayn warmiyaan goosan ayadana dhowr kalmaan dii doona aan ku hormaro laas caano sida wada ogtiina ma aragteen hadina aragna hadda arkaysaan waxay maraysaa horgoladii in laga ugaarso 2007 waxaan ka xasuustaa Allah u naxariistay barnaamij uu maalin sii daayay ninkii la oran jiray awk oo leeyahay hindi lagu cayrsanayo jidadka Jarmalka maxamed oo gubanaysa ajirada san xasuusta ilaahay baan ku dhaartay markaan arkay horgal mashta lagu hayo asagoo lagu arkay calan Soomaaliland asagoo qaba horgalkaas yarka ee maanta meesha lagu bogobogeeyay sida la ii sheegay waxa watay oo keenay oo magaalada ay soo dhexmari yiri midkii la oran jiray ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ahaa ee Soomaaliland ee jaamacsiyaadka ahaa kiiba 2 milyan lacag asagoo wada oo xalay waliba inta rag u tagay 2 milyan kamid ah ka dhanaansadeen kaga riteen lacag waa cunis mabda'una waa meeshiise ayuu midka yarka soo dirsaday isagoo bilaa qoriyo iyo magaadi bal soo dhexmaro lacagtan xalay siiyay dadku inay maqsuud ku ahaayeen in kale soo dhexmar cunugii xunka ay horgalka ahaa oo xalaka halka ugu xirnaa qabiil ahaa ma garanayo limana sheegin oo magaalada dhexmar yaa tahay lama oran kaalay baa leeyahay waa istaagayo hadda ma sidii dameer beer galay dameer beer islaameed galay loo leeyahay waa kane ila daawada ya isma lahayn calaamadii xunta ahayd ee SNM ee jamhadii SNM calaamadeedii ashahaada ku qornayd ayaa sidaa wanteed u noqonaysa ma aaminsanayn oo goboladii ay haysatay mid kamid ah saa ku noqonaysa gobonnimadu waa intaas iyo wax looga sii durko reer laas caanood 2022 iyo ilaa 23 inta u dhaxaysay gobonnimada hoygeedaan qoray nina kuma sanduleyn karo waxayse rabin warbixinta waxaan kaloo idinku sheegayaa biri hadii ilaahay idmo garaad jaamac garaad cali inuu ku soo fool leeyahay asagoo dhikaysan oo dhan oo macaa ciidankiisa wata inuu laas caanood imaanayo asagoo ciyaamad kaliya wata inuusan imaanayn ma reer laas caanood idinku bishaareynaya inuu imaanayo asagoo isimada kale meesha yimid ka aragti duwan asagoo ka muuqaal duwan asagoo ka xiniya duwan ayuu biri imaanaya hadii ilaahay idmo soo dhaweyntaan oo diyaar garooba markaas ay leeyahay ninkaasi waxba kama soo tagan waxba dhulka kama yeelaan kama soo tagin waxa la lagu haysto naf iyo maalba magaalada wada xamaanaya biri soo dhaweey horgalkaas gudoonka baarlamaanka ugu magacaaban SNM jamaacada argagixisadaana malyanka xalay ka diirateen xogtiisa waan helay lacag waa cunus mabduuna waa meel lacag waa cunuso waa u baahanahay kharashaad iyo waxaan rasaas iyo hub ku sii gadano oo hadii la ku qumqumka iyo rag hilib ku qashaan iyo magalaysa waa loo baahan yahay goys bariya goys waa loo baahan yahay ka diirta waa xaq yagi weeye magtayadii weeye inta wiilay meesha ku maqan ee argagixisada cuntay laakiin mabda'eenu waa noo mashis ayana ha arkaan malyankan xalay la cunay malyan baa ku xiga oo soo socday asagana tabtii xalay meeshu malaykaasi hanoo maro waliga ya Allah iyo wax la yaama jirto lacag ma rabno nama soo gasho ka diiro darbaaxana afka kaga ji ayadoo musallaftay oo hadii la ku rooyay shiida oo baangadu garaacmayaan darbaaxana lagu sii daro intaas aan leeyahay garaadka garaad calina waa soo dhaweynaya biri asagoo xuniyihiisa wata garaadada kale ciyaamada la soo tagay ciyaamado bay la yimaadeen la saano laakiin garaad jaamac sida la ii sheegay xiniyihiisi buu soo qaatay nin raga way laab garan doqona yeelkeed halkaas aan kaga gudbayaa qodobka la saano waxaan guda galayaa tulli guuleed iyo halka deegaanka gari kombe dagaal baa ku socda
dagaal waxaa ku socda deegaan ahaan iyo dhul ballaarsiya oromaa dagaal ku haysa walaalkay ina cag jarow ninka la yidhahdo saaxiibkayow marna walaalkayow inaan publican kaala hadlo waa igu waajib warana adeero waddankaada madaxweyne wa war rajiim baa kaa horreeyey cabdi ilay la yidhaahdo dhiigyacaba dadkan waa u darnaa laakiin ma aanu arki jirin oromo iyo ishaag wixii waaga dhow ciisaha iyagana leynayay ciisahana waxay leynayay maxay ahaayeen muxaa magacoodii waxaa la odhan jiray war wax maxayaharna ma ahayn wixii ciisaha leynayay maxay ahaayeen waxay ahaayeen xanfar maalin alla keeno yaxar iyo xanfar iyo oromo iyo haddii alla ku royahay mushunguli iyo jurujuur iyo hoog iyo baasaa soomaalida deegaanka ugu meegaalisan miyaa loo fara baxsanaya qof macnaha d d s ama soomaaliya miyaa lagugu dulcunaya ninkii meeshaan joogay ee mahtaliga ahaa ee dhigyacabka ahaa ee cabdi ilay ahaa asagay ka ergoon jireen oromo iyo xanfari oo dowladda federaal ka baryi jireen oo annagaa dhul durugsan jirnay war maxay tahay bustahan ku saaran midda kale waxaa lagu leeyahay jaarsan niman la yidhaahdo iyo gari koombaas dagaalay waryaaya jaarso ama ahaato ama orama ahaato jaarso oramaana ay leeyihin waxay rabaan ha ahaadaane soo degaanka ay durugsanayaan u durugsan mayaan degaan orama ahaan soo degaan orama ahaan u durugsan mayaan ninkan gari koombana muxuu ku dhimanayaa degaan soomaali ahaan bu ku dhimanaya war adeerayaalo se warna adeero wiilkaa ree isaaqo see wax kaa yihiin adeer gocaliyo warna adeer kumana caayi karo saaxiibkay baa tahay xaggee basuu kaa saaran war ma deni baa dowladina isku meel laga qaaday deni baa iyadoo laas caano hooya ka baroonayso sanduuq maraqside sanduuq caan naga daba wadaay ma asagoo kalaata walaala waa tegaysaa waqtigaaga waa dhamaaday xantaa fuleexantii ma mooga warna adeero adoo nin raga ah oo tolkaa u dhimanaya oo la leeyahay biri ka maalin sharaf buu ku tegay in adeerow tag dalka maanta dagaalka lagu hayaahay hadday ciise noqoto hadday gari kooma noqoto ninka mas-uuliyadda u haya ee madaxweynaha o adiga maxay qabtaan ciidankaagu kaale ciidankaagu maxay qabtaan maaday ku waardiyeeyaan ciidanku mise xaafadaha ogaadeen keliya waardiyeeyaan madaxweyne haddii gari koombe iyo haddii ciisahaas iyo daafaha laga soo tago caloosha in ogaadeen degan yahay waa ogaadeen waa jees nin daaroodaat caloosha in ogaadeen degan yahay dds waan ogahay laakiin calooshay imaanayaan ogow cadowga nimanka maanta ku hiigaya halkaa calooshay imaanayaan caloosha si usoo wadaan warna adeerow dalka difaac oo sharaftaada difaac oo masabkaaga difaac oo haddii aala ku rooyahay qabiilnimadaada difaac oo in adeer isu kalsoonow meel laga haysta ma aqaani in adeerow halkaa 60 kun oo ciidankaa ee new police adeerkaa marqaata waa niman daarooda oo weliba dee absama ah oo ogaadeen u badan in adeer xaggee bustuu kaa saaranya aan kaa qaade war quraan ma ku akrinaa war meeshii maanta ma dhihi karno tolaayaa ree hebel gari koomba loo gurmado waa waxaada puntland naga haystoo kale dowladda maarkaa noo dhisan tolaayay baan ku hayna maxaa kalifay balaayadii meesha xukuntay madaxweynaha noo habaa bustay ay saaray habise oo isaaq baa leefleefaya oo carab busta ku saaray adigina sidoo kaleata warna adeero gacdiyo meesha ka kac war damiir yeelo war waa tegaysaa meeshaan kursigaan ku waari mayside adoon wallaahi kii tegay oo dhiigyacabka ahaa ma inuu dhiigyacab ahaayo ummadaas xasuuqi jiray ama ummadda dhibaatain jiray inkastay ummadda lafteedu ay bilaa khayr ahayna kursigiisa ku haysteen haddana wallahi waxaa markhaanti ka ahay inuu kaa xiniyo iyo ninimo badnaa oo dadka asagoo intuu ka dila maahe aan cadow waxba ka dili jirin warna adeerow gacaliyow dimuqraadiyadaada iyo qabowgaaga waa u bognay laakiin in adeer cadowga nin u noqo dadkaagana nin jeec u noqo adaarti intaasaan ku leeyahay reerkaa gari koombe la yidhaahdo xaqudirir baa tihiin guurleyda ka gaarana maanta ma arko calaacal iyo tobay kacana ciddihi mayo sababtoo aan idinkaba gacan sarreeyo hadda dhimashadu 4 iyo 6 bay kala maraysaa ayagaa 6 laga dilay kuwaan 4 baa laga dilay war guulaystaan leeyahay dagaalama oo cidna has ku hadlaynina oo haddii ninka yahay kasoo saaro haddii aan ku rooyay habisada ka qaado dee waa meesheeda tolkii ogaadeenay dariska laana waxaan leeyahay war ogaadeenow war gariko maanta la cuno adaa lagu socdaa ay dhanna wax bustuu kuu saaran yahay ma garan karo
haddaad calool degan tahay caloosha waa la imaanaya markii geesahan iyo feerahan lasoo cuno caloosha waa lasugu imaanaya niyow inaad adeerkaa u hiili intaasaan kaga gudbaya qodobkaana qodobka saddexaad ee aan raba inaan dul istaago waxaa weye oo aadka iga xanaajiyey oo aan la yaabay xalay waxaan dhegaystay guddoomiyaha guddiga maya guddoomiyaha maaha afhayeenka guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka puntland topic baa maxaa topicna ma ahayn tabiik bay ahayd wax noocaas cabdinuur nin la yidhaahdo wariye ahaayo caan dhalay ahaayo 30 sano fadhiyay meesha la yidhahdo ingiriiska oo b b c da wariyaasheediya ayaa hadlayay hadalka aan aadka oo qirada wuxuu yidhi 30 sano maya 10 sano dadka markii doorashooyinka ka hadlayay dadka codeyn kara kaararka qaadan kara 10 sano dadka koonfur ka yimid ama meel kale ka yimaado puntland joogaay 10 sano ay ku qaadan karaan kaarka kuna codeyn karaan waxaan fiiriyey cabdinuur waaba garanayaa waa qurba joog guddiga kuwa xukuma iyo guddoomiyaha ka ahna kulli waa qurba joog war heedhe horta kow annagu soomaali mana mise ma nihin labo dadka meesha degan ee aad leedihiin 10 sano inaad joogtaan muhiim ah ma soomaali ba mise waa ajnabi hadduu soomaali yahay doodka gelimay xagga iga dhig ifan xataa hadduu yahay ajnabi 10 sano waa muddo cunsuriyad iyo doqonnimo iyo jaahilnimo ka muuqata wey waa hadduu ajnabi yahay Ethiopia ahaado Eritrea ahaado ilaahu Ugandays ahaado cid rabaad ama Afrika ahaado ama European ahaado 10 sano waa khalad waana cunsuriyad waa hadduu ajnabi yahay laakiin waxaan ogahay dadka la leeyahay ma qodanaysa 10 sano aan joogin waa Soomaali walaalkay koonfur ka yimid meeshaan degan shaqaysan iyo cashuur bixiya cabdinuur ki aan hadalka aan ku soo halqabsanaya guddo ninka afhayeenka afhayeen ingiriiska baasaboor wadata intee ku qaadatay ingiriiska baasaboorkiisa how much ko afhayeen waa loo ajnabiya oo qaxooti ku galay ingiriiska afhayeen markaad joogtid meesha la waddanka haduu federalism yahay London markaad joogtid Manchester oo kale aadtid inaad u guudid aadagtid inaad codeysid maxaa ka xiga inaad address leedahay amal duntahay ka address garaysan tahay magaaladan baa inaad codeysid ka xigta jaahilnimo cunsuriyad Soomaali jinsiga Soomaaliya lagu xadgudbayo ayaan u arkaa wiil Soomaaliya oo gobolada kale Soomaaliya ka yimid oo Puntland degan oo canshuur bixiye ah in la yiraahdo 10 sano inaad joogtaa muhiima inaad kaarka qaadatid doqonnimo u arkaa sababtoo ah qaxooti baa Soomaali wada badannahay dadka shaqada haya qaxooti bay ka wada yimaadeen nin 10 sano sharci lagu siiyay ma jiro sidii ku qaatay general baan joogaa anigu sidii ku xijiro hadda 5 sano ka dhigay Mareykan iyo wax ka wada yimaadeen Ingiriiska ka wada yimaadeen 5 sano lagu qaataa waa ayaga ajnabiya adoo Soomaaliya ka waran wiilka 10 sano ruuxa ma nasanima war laba mid asmayno war wadankii waa ka go'nay oo Soomaaliya ma yiraahdo Puntland baan la yiraahdaa Soomaali ma naqaan waa wax la garan karo war Soomaali baan ahay walaalay waa soo dhaweynayaayo qofka Soomaaliga ay xaq anu caawayu baan general baan degan meel yaada Hamburg baan degan Hamburg hadaan lacala citizen noqdo citizen hada maahi Hamburg inaan Hamburg deganahay ama ka codayo lacifa maadaama magaalo kale u guuro mooshin kale u guuro inaan mooshin cod ka dhiibta waxa iga xigta inaan address leeyahay meesha deganahay amildun ku ah oo aan degaan ku ahay kana shaqaysto xaafadna ku leeyahay saasaan cod ku bixin karaa only wax kale iga xigaan wiil kasta oo jarmal ah oo cod bixiyana waa nooca war aqliga noocaana ee wiil Soomaali loo leeyahay 10 sano maxay tahay hal sano waa hataa maaha qofka waa in la yiraahdaa inaad kaar qaadatid waxa ka xigta inaad address leedahay ganacsina leedahay ama shaqaysatid oo canshuur bixiye tahay shaqadu ma ahna ganacsi kale leedahay hatta kamani meesha ama meel ama reer dukaankood hadduu ka shaqeeyo mushahar qaata yahay waa canshuur bixiye sababtoo ah meesha uu ka shaqeeyo canshuur ma laga qaada qofka waa in la yiraahdaa degaan ma leedahay guri ma degan yahay ha ama kiraa asagoo lahayd no guri ma degan yahay ha haddii aan ku ma shaqeeyaa canshuur bixiye ha wuxuu u leeyahay inuu cod bixiye noqdo ilaahu muu bil joogo qurba joogta doqomada ah ee madaxa wada xiiran yahay ee guddoomiyaasha haddii aan ku guddiga doorashada wada ah la hadlaya
juxaan la hadlayaa wasiir arrintaa ku laabo wasiir wiil Soomaali adu caawiso in Soomaaliyaad shalay waxaad ahayd